السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan ka salaamayaa halkan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Waxaan ka hadlayaa laascaanood gobolka Sool baan ka hadlayaa dhibaatada ka socota ilaa shalay ilaa maanta ka dhacaysa dagaalada xun ka dhacaya. Dagaalada horena waan uga hadlay. Maxay ahayd reer Soomaaliland gooni waan la hadlay, reer laascaanood gooni waan la hadlay. dhibaatooyinkii aan ka filaynay waa kuwa dhacay maanta. wixii aan ka hadlaynay waan ka filaynay dhici doonaan waa waxa maanta socda maanta dhacay. waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay intii ku dhimatay dagaalkaas ilaahay u naxariisto. waxaan maqlayaa heera iska dhan baa wax lagu dhuftay oo dhintay yar iyo weynba. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun baan leeyahay. dadyoga kale oo ku dhintay oo nooc walbaba lena waxaan leeyahay inna lillahi. reer Somalilandna waxaan leeyahay idinka isku dilay dadka walaalaha ah. in badan baan la hadlaynay anigu kulli dhowr goor baan ka hadlay. in badan baan lahaa ciidamada dib celiya tan dhibaato ka badan intaas ma ka jirta aanay imanin. dhibaatadii aan filayay maanta dhacday maanta. maadaama aanay jirin wax dowladnimo la yidhaahdo maxay ahayd waxyaabaha aad leedin waxbaan qabanaya soo martay hore soo qabateen dee waxaad dadkeena qabateen bay ahayd waana wax waajib ahaa. nin waliba in meesha dhisto bay ahayd. marka maxay ahayd dhibaatooyin xun cawaaqib aan laga soo waqsan karin idinkaa bilaabay. ilaahay waxaan ka baryanaa inuu kala qaboojiyo dadka islaameed. ilaahay kala qaboojiyo. iminkana waxaan leenahay daba qabasha jirta weli intaa hadhay dib ula baxa. ciidamada iminka inta halka dagaalka wixii ka hadhay dib ula baxa. hadii dadkii geesiyaasha ahaa ee waddanka difaaci lahaa ay dhexdooda iyagu isdilaan oo dhexdooda isku dhameeyaan dagaal dhexdooda hadday isku dhameeyaan iyagoo dad islaam oo walaala ah waa arrin aad iyo aad looga xumaado. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun baan leenahay. muuse bixi hadduu khaldan yahay inanka inkan aad sheegaysaan maxaa dadka kale ka ciwaayeen culimadu ka ciweeyey waa caaqilada iyo salaadiintu ka ciwaayeen. arrintan waa in wax laga qabtaa. shicibku inuu kacaa waa in shicibku kacaa. wax dagaalkan laga faa'iiday ma jirtaan khasaare waxaan ahayn ka faa'iidi maysaan. dagaalna faa'iido ma leh cid ka faa'iidaysa ma jirto. ilaahay ka cabsada baan leeyahay hala joojiyo dagaalkaas. joojiyo dagaalka. haddii ladin abhiyey reer Somaliland 100 goor adii yiraahdo naga baxa dagaalna idinku qaadmayna naga baxa. anagoo isoo weerarmayno ilaahay hadduu leeyahay naga taray markii la yidhi inaa baxdaan bay ahayd. laakiin nasiib darro waa ka dagaal lagu dhaceen. waa kuwa dagaallo lagu baaba'ay cawaaqib xun keenaya dhacay. intaan farin ka fiirsay Soomaalidu tirahdo markii hore bay ahayd in ka saaro Muuse Bixi ciidanka meesha taasay sahlan ahayd dhinac walbana u wanaagsan. haddii ummadda Soomaaliyeed in colaad cusub loo bilaabo dagaal iyo colaad la kala dhex dhigo waa dhibaato aad u weyn waana waxaan dhammaanay subxaana allahi camaa yushrikuun baan leeyahay.